بسم الله الرحمن الرحيم وعن وناسن داوديا شقي ما هي قدرة مدن أنا قد داونا يا channel كيجا هوبال تي في 1 وبرنامج قارا رجسوا علين تنبضا شككم جرو إن بقول كي بس عشان dadka Soomaaliya ay dareemeen dhab ahaan dhibaatooyinka dagaalka oo ay ka heleen waayo aragnimo dheer iyo natiijooyin ku noqotay cashar lama ilaawaan ah oo aan ka tartimi karin maskaxdooda sida muuqata xilligan aynu joogno baaweynta Soomaaliyeed kuma haqal taagnaa kumana faraxsana inuu soo noqdo mid la mid ah sanadadii dhiigga ee 30 sano mana doonayaan marnaba inay sii socoto ama uu ku dhinto shakhsi qura oo Soomaali ah isweydiin uma baahna in bulshadan aad ugu kulul yihiin una ooman yihiin nabad ka curata ee qaran Soomaaliyeed dalkooda xaaladda qaliibsan ee dhibaatooyinka bulshada oo gaari digriga ugu sareeya dadtooda shacbiga waxay dareemeen inay ku nool yihiin nolol biima ah ama qamaar ah ayahoodana oo mugdi galay kadib waxay ogaadeen in naftu ay u dulqaadan karin xaaladdan mid la mid ah ilaa ay nabad hesho mooyaane iyadoo sidaa ay tahay kuwa nabad raadinaya waxay garan la'yihiin weyga iqaabka ay u baadi goobaan kuna helaan furaha nabadda guri ayaa lagu xiray nabadii Soomaaliya kadibna waa la qufulay furihiina waa la aasay Soomaalida oo dhan iyo beesha caalamka way arkayaan qolka lagu xiray nabadda mise garanayaan halka furaha lagu aasay waxaa jira tiro yar oo garanaya halka furaha ku aasan kuwaasi oo ah hogaamiye kooxeedyadan iyo siyaasiyiinta iyo danleyda balse meel dheer ayay shacabka ugu tilmaamaan furaha si aysan u helin weligood dagaalkana ugu sii huro ay halkaasna ugu helaan dhaqaalaha ugu fushadaan danta iyaga u gaarka sababta kooxda yar in ugu qarinayaan furaha nabadda waxay tahay macaashka ay ka helaan dhimashadeena iyo dhaawaceena haddaba haddii aad idiido in aad idisho ama aan diido in aan ku dilo kadibna aan inagu midaysan curyaamino kooxdaasi ka soo horjeeda danaheena maxaa dhici doona soo kulama aha in ay keeni doonaan furaha nabadda hadday sidaa ay tahay sida dhabta ah waxa muuqda inay nabaddu maqnayn ha u doonin meel kale kuma aasno dhulka lama dhoofin mana guban ma hayo ruux kale fiiri gacmahaaga maxaad haysaa ilaa mahadi weeyaan waata oo ii muuqataa meeday gacantaada ayay ku jirtaa ha sii deyn yay kaa lumin waa in aad fahantaa in aad tahay rajo soo celinta nabadda Soomaaliya waa shakhsi kasta oo Soomaaliya ah nabaddu adiga kugu xiran tahay hogaamiyahaaga ayaa ka xaday nabadda haddana isla adiga buu gacanta ku geliyay si xeelad ah iyo qiyaamo ah adigoo fahmin kadibna wuxuu ku tilmaamay in nabaddu ay ku xiran tahay adigoo laaya qabiilooyinka kale waadna ogolaatay tilmaantaasi siday adiga nabaddu kugu xiran tahay oo nabaddu hadday adiga kugu xiran tahay maxaad adigu hor joogtaa maad xoreysid nabadda si adiga iyo dadkuba ugu noolaadaan nolol wanaagsan una gaaraan horumar iyo barwaaqo mise ogid in nabaddu adiga aad u tahay cadow aan kula socodsiyo sida ay nabaddu kugu xiran tahay adigu waxa tahay maleeshiyo waa qori waxa aad sidid waxa dishaa cid lagugu amro in aad disho waayo waxaad ku qaadataa murduuf qaada iyo xoogaa lacag ah iyo waxaad boobto marka aad joogtid aagga hore ee furinta meesha uu taliyahaaga joogo magaalada isagoo raaxaysanayo mukeefka ku jiro gaariga ku socdana uu mukeef yahay wuxuu kaala diriray maskaxda adiga waxaad tahay baalashiisa isaga ma noolaan karo adiga la'aantaada adiga waxaad ka badan tahay isaga waa mid
adiguse waxaad tahay bulshada oo dhan, waxaadna tahay aqoon-yahankii, waxaad tahay garaadkii, taajirkii, ganacsadihii, farsamayaqaankii iyo wixii la mid a. haddaba haddii aad hubka dhigto, hantidaada diido oo naftaada aad u shaqaysato, qabqablaha ma dili karayo xitaa dooli basal haddii la hordhigo. haddaba shakhsi keliya bulsho murumin karayaa haddii uu qofka ka shaqeeyo xisaabta isku dhufashada ama isku qaybinta. wuxuu sameeyaa wax la yidhaahdo hubin oo ku tusta in shaqada xisaabtu ay sax tahay ama qalad tahay. sidoo kale dagaalada sokeeye ee dalka ayaa noqday faa'iido iyo fursad qaali ah oo ay ku farxaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed. siyaasi walbaba waxa uu ku dadaalayaa inuu tijaabo ama hubin uu ka dhigo lahaa dagaalada siyaasadeed ee uu lahaa goobta uu ku tijaabiyo. ugu horeyntiiba siyaasi walba wuxuu urursaday inta isaga la beesha ah si uu ugu kala ququbo qabiilooyinka kale una furfuro bulshada oo aan la qiyaami karayn hadday isku duuban yihiin. siyaasi kasta wuxuu fursay beeshiisa urur isagoo ku adkaynaya inuu ururka isagu leeyahay ama isaga dantiisa ama si uu madaxweyne u noqdo. haddii kalena dadka kale ay cadow yihiin. siyaasiyiinta u furi karto beesha wuxuuna u adeegsadaa si qalab ah oo ku furfuro siyaasadiisa. xaaladan mucjisada ah waxaa ka soo baxay siyaasiyiin badan oo wada danley ah oo mid walbaba u taagan beel gaara u arkaan si ay u yeeshaan awood tala bixin ee u furaysa sida ugu dhaqsiyaha badan ayna ku talagaleen awoodda hogaamiyeed ee beesha ku taageersan yihiin qalad ama sax ayaana la dhisay inay ku bahloobaan misna adkaystaan xilka tuugnimada ah ee u hayaan beeshiisa. sidoo kale siyaasiga iyo dagaal oguhu waxay si xoog leh u danayaan sii socoshada dagaalka. waxaad arkaysaa dagaal lama filaan ah inay ku qaadayaan beel kale. maxay tahay sababtu? soo kuma dhimanayaan dadkiisa? qiimo uma laha tirada dhimashada beeshiisa. xitaa dhaawaca ma soo booqdo xaalad kasta ay ku jiraan, balse waxay eegtaan lacagta kuwa beesha ah ay ugu soo dirayaan dibadaha iyagoo leh yaa lagaa badin. waana taasi sababta uu dagaalka u qaadayo. boqolkiiba 80 dhaqaalaha gargaarka hay'adaha samafalka ugu talagaleen bulshada waxay jecel yihiin isku dayaanba inay gacantooda ku dhacdo iyagoo ay u dheer tahay tangaarka ah ee ku helaan space political iyo ilaha dhaqaalaha ah ee gaarka ee socda. waxayna had yar ka siiyaan dhowr qof oo ugu garadsan beesha, kuwaasoo beesha iyo bulshada kala dirira si aysan u fahmin sirta iyo qiyaamada xatooyada siyaasiga ama qabqablaha. colaadan mareegta ah haddana marariixiska ah, munaafaqada iyo dhibka ah, haddana ma dhamaatada ah, mataanaha wada dhashay, mataanba mataanka xiga migligu afaysanayo inuu muudiyo u dudi. haddii masxalad iyo kalkacal dhexdooda ka muuqato maxsalad ay ku wada hadlaan meesha oo lahayd ismandhaafka iyo qabkiiyo mudnaanta anaa leh iyo ismarin waagaan idin helay miyaanan macna beel ahayn. barnaamijkeena soo celinta Soomaaliya intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa. bulshooy galbadkii istaba qabo waxaa halkaa idinka soo diyaariyey anigoo ah Maxamuud Dhaqane Nuur gacmo dheero sidaa iyo nabadiina.